kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal waxa khadka taleefanka si toos ah ugu jira haatan Suldaanka Guud ee Beelaha Sawir Awal Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Suldaan ugu horreyn soo dhawow yahay Suldaan bal ugu horreyn heshiiskan ay wada galeen Masar iyo Soomaaliya bal muxuu ka dhigan yahay warran oo bishankan ku jira gudaheeda heshiiskaasi way kala saddex media baan ka maqlay waxaan ku soo ururin karaa oo heshiiskii MOU-ga heshiiskii sabkarada dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya ku dhex maray bishii January magaalada Addis Ababa ayaa waxaynu oran karaa labadaba isu keenay oo si ay u banjarayeen heshiiska ayuunbaa iskaashaanbuuray sigan tii dowladda Masar maslaxadeeda gaarka ah ee biyaha Niilka ay ilaashanayso oo mar walba Itoobiya inay cadow u samayso ay ku shaqeynayso dowladda Soomaaliya iyadoo daytaal bahayno ay xoogag ajnabi maanta ilaalinayaan iyaduna inaan Soomaaliland beesha caalamka xubin buuxda ka noqon ay ku shaqeynayso dareenkaas uma isu keenay in oran karaa heshiiskanina waxa uu ka dhigan yahay waxay ujeedada ay u galeen waxay tahay un sidii loo banjarin lahaa heshiiska MOU-ga ee safkarada dhawaan heshiiska rasmiga isu bedelay Soomaaliland iyo Itoobiya Suldaan macquul ma tahay in Soomaaliya ciidamada masaarida keento magaalada Saylac haddii khilaafkooda Itoobiya uu halkaas si dhaaf ama si xumaado intii ma filayo inay taasi dhacayso waayo waxaan nahay dal jira oo xuduudiisii leh oo ciidamadiisii leh oo calankiisii leh oo awoodiisii ciidan leh oo maanta ilaashan kara ama mas'uuliyadda dalkooda qaadi kara halka aanay Soomaaliya iyadu intaa in leeg aanay ka ilaashan African Union xogo maanta Burundi iyo Uganda ay ilaalinayaan inaga u dhex banaa qarannimadeena iyo heshiiyada aynu galayno marka marnaba suuragal ma aha taaka kamida dhulka Soomaaliland ee inagu aynu leenahay in Soomaaliya shaqo ay soo maleegtay lagu keeno ciidamo kala ajnabi ma kula tahay in dowladda Masar ay ka shaqeynayso majaxaabinta Soomaaliya oo ay la galayso balama aanay oofin karin ama aanay u sii rumayn karin wallahi kulli sida aan maraba u sheegay dowladda Soomaaliland cadawada ay leedahay ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Masar iyo Qatar iyo dowlado kale oo Afrika iyo adduunyada kale ahi oo iyagu maslaxado iyaga u gaara oo ay ku shaqeynayaan aaminsan inaan Soomaaliland beesha caalamka xubin buuxda ka noqon si aalada aan geli karin marka waxaan oran karaa waxa isu keentay MOU-ga si looga hortagi lahaa baba iska gaashaan buuraysanayaan waxaan oran karaa wax kale oo isu beerin kara ma jirto waayahay ugu dambeyn Suldaan shacabka reer Soomaaliland fariinta u diraysaa bal maxay noqonaysaa Soomaaliland iyo dibadda qoqojoog iyo qorbojoogba waxaan leeyahay dalkan inaga leh adduunyada 7 bilyan ee qof ee adduunka guudkiisa ku nool cid walba Ilaahay meel buu siiyay inagu Soomaaliland ba Ilaahayna siiyay mas'uuliyad wadareed weeye inaynu ilaashano qarannimadeena iyo midnimadeena iyo wadajirkeena iyo walaalnimadeena oo aynu ku shaqeyno mar walba siyaasadda xukuumadda markaa jirta ee ah meel marinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu dhexda u xidhano meel uga soo jeedsano dareen midaysan aynu yeelano oo qarankani inuu hana qaado oo uu taabo galo oo adduunyada uu xubin buuxda ka noqdo taas ayna saaran haddii shacabka Soomaaliland qaybihiisa kala gedisan oo dhan aynu nahay marka waa inaynu midnimada iyo dareenka midaysan aynu muujinaa waa inaynu ogaanaa cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee tirada badan iyo inta inoo naseexa inay si fiican inoo kala qeexnaadaan oo mid walba aynu kula macaamilo ishii aynu ka aragno inaguna midnimadeena iyo wadajirkeena iyo walaalnimadeena gudaha aynu ka shaqeyno wallahi waxay ka dhigan tahay kalsoonida ka dhaxaysa madaxweynaha qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland waana ku bogaadinaya madaxweynuhu inuu gobolada bariga tago ama dalka intiisa badan oo dhan intii aanu marinba uu maro waayo wuxuu gudanayaa waajibaadkiisii dastuuriga ahaa ee loo dhaariyay ee qarankan ku hogaaminayay tu kalena way u raacdaa xisbiga madaxweynuhu uu madax ka yahay musharaxna uu ka yahay marka xogaal uu noqoshada xaaladda dalka iyo dadkaba oo shaqadiisii koowaad ah iyo wixii aynu u igmanay iyo ta kale ee xisbiga labadaba inuu iswaafajiyo waa ku bogaadinaya shacabka reer Soomaaliland sidii ay u soo dhaweeyeen waa mid ay hidow lahaayeen kalsoonida ummadda iyo ka dhaxaysa iyo madaxda iyo dal jacaylka iyo dad jacaylka